كحي مركبتها كحي حاجة سلام بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadka waxgaradka ah oo reer Nairobi dhalinyaro iyo gabdho odayaal ismo haday ku jiraan caaqilo walaal saxaafada aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh rabaadka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan safar kaga yimi Soomaaliya Djibouti hadda ku sugnaa asbuucna soo dhaafay maantana waxaan ka soo kicitay magaalada Djibouti waxaana safar shaqo u yimid Nairobi muddo hadda 7 bari ah ayaan safarka ku soo jiray aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan Nairobi imaado dadkan shacabka oo Soomaalidana aan u imaado waxaana mar hore iyo mar dambe mar labaad iyo mar saddexaad ba aad ugu mahadcelinayaa dadka shacabka oo soo dhaweeyay oo waxgaradka ah aqoon-yahanada nooc walba leh waxaan leeyahay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Puntland waa run weeye meelaha xoolaha ugu badan laga dhoofiyo weeye haddana xilliga musiibka lagu jiro waa xilliga arafada waxaana ay dhammaadeen xoolo dhoofintu waqtigii asbuucii la soo dhaafay si wanaagsan bayna sanadka xooluhu uga dhoofeen oo number aad fara badan oo ilaa gaaraya 700 kun oo neef baa ka dhoofay Puntland xoolaha caafimaadkoodana haddaynu fiican yahay wax u garanaysaa sida xooluhu u dhoofeen aad iyo aad bay u fiican yihiin wadankana xilliyadii xilli roobaadkii waqti fiican baa la soo maray oo gugina fiicnaa haddana dayrtu insha Allah meelo badan bay si fiican uga daaday waxaan aad iyo aad u rajaynayaa xoolaha wixii hadda tageen waxa kalena inay si wanaagsan ku dhamaan doonaan si fiican baana sanadka wadanka xoolihiisu u fiicnaayeen oo abaara xoog leh kama aan jirin marka laga reebo waqtiga la soo dhaafay birihii 7 iyo 8